munaasabad lagu maamuusayay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee 15 May oo uu ka qayb galay wasiir dawlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Cali Axmed Sheekh ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya. iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL ayaa Muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad lagu dhiirigelinayo dhalinyarada Soomaaliyeed. waxaa soo qaban qaabiyay urur dhalinyaro ah kaas oo ka shaqeeya koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, waxaana kala qayb galay wasiir dawlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Warsame. gudoomiyaha ururka dhalinyarada ayaa sheegay in dhalinyaradii Soomaaliyeed ee SYL ay ka tageen waxyaabo badan oo muhiim ah kuwaas oo loo baahan yahay in dhalinyarada haatan joogta ay ka faa'iideystaan. barnaamijkan oo ah 75 guuradii ka soo wareegatay xilligii la aasaasay 1943 ururkii SYL ee hadafkoodu ahaa mideynta Soomaaliya meel walba ay joogto. xaqaaqadii waa mid aan aaminsanahay maanta dhalinyarada Soomaaliyeed inaysan gaarsiinin hadafkii maantaasi ku tiyaaqayay oo dib ugu laabatay qabaayilo iyo wax qaybsi dhibaato badan soo dhaxmartay. waxaan mar walba xilli walba aan balan ka qaadnaa xilligan oo kale inaan xusno maalintan oo kale. xaqiiqdii dawladda dhalinyarada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya xamar iyo koonfurta dhinacana soo uga bixin. waxaan aasaasay dhalinyarada jaamacadaha inta badan ka soo jeeday ururo badan oo inta badan xafiisyo leh laakiin isku tagay inay dalad ahaan ku sameysmaan. wasiir dawlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdullaahi Xamuud ayaa dhankiisa sheegay in dawladda haatan jirta ay tahay dawladdii dhalinyarada, muhiimna ay tahay in dhalinyarada haatan jirta ay door muhiim ah ka qaataan dawladnimada Soomaaliya horumarinteeda. sida loo sheegay marar badan waa ka maqasheen dawladdan waa dawladdii dhalinyarada, waa dawladdii u shaqeynaysay inay gacanta idin geliso xukunka waddanka. idinku waxaa tihiin 75% waddankaana la yidhaahdaa. taas macnaheedu waxay yahay waxaad tihiin saamilayda ugu badan waddankan. berrito markii 2020 ama 2021 la gaaro oo la gelaayo qof iyo cod aan gaarno, codadka ugu faraha badan dhalinyaradu ka imaan doonaa. idinka hoggaanka waddankan gacanta ku haya, idinka steerinkii ama darawalkii waddanka ka ah, idinka xulan kara dadkiina idin wadi lahayo waddanka oo idinkaba aad ka mid tihiin, dhalinyaradiina aad ka mid tihiin, aad suurooda inay xildhibaano soo noqdaan ama u tartamaan jagooyinka sare ee waddankan. ha yaraysanina, saamilayga ugu weyn ayaa waddankan ka tihiin. waddankan waa waddan barwaaqaysan. ururkii dhalinyarada ee SYL ayaa ka koobnaa 13 dhalinyaro ah, waxaana la aasaasay sanadkii 1943. waxaa laga joogaa 75 sano. welina waxaa dadka Soomaaliyeed ku weyn xornimada Soomaaliya qaabka ay u mareen dhalinyaradaas. Cali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.